waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaalida isku xaq yihiin, in dhaxalka ay isaga xaq yihiin. waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan. haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ayan ka qaadayn. waxaa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc walthuluth walkhaamis waljinni. ma jirto taasu. labada qof waa isku mid, waa isku xaq, waa siman yihiin. xuquuqda muxuu ahaa mujtamaca ama waaridkooda ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida ah mana kala hoosayso. taasu isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ah ee isqabaa inay isku xaq yihiin, waajibkiina inuu u siman yahay, xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa. markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore udhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka aynu inagu rukunkii ugu horreyn saas ku xabaalno. waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen, rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynayna. maxaa waxay addoonnimaa jirtay, addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaasho habaysin. haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen, kitaabkeena kama muuqateen. haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulus iyo rubuc maxaa keenay? waa furuda waxa keenay. gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray. wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xaabkaasi uu ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahay hadhimato caqligooda iyo rusaasku ku socon jiray. diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoreysmi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo. maalin ba hayad la soo dejiyo, maalin ba tilaabo la qaado, ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen aayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay. waxaan rajaynayaa inay dalaqooyina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin. waa gar in aad ila yaabtaan. waa gar maxaa wacay? waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin. ana haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo billah waa kitaab kaamila wallahi naseexana idina waxay idinku shubeen waa beento. qaraaba idin lama ahayn, bishiina dan kama lahayn, wadankiina dan kama lahayn, sharafkiina dan kama lahayn, ummadnimadiina dan kama lahayn, inaad xifataan iyo xoroon midna iyagu muraad kama lahayn. dantooday wataan. waxay ruuxeen weligood inay tooda idinku daafacaan. laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno. naftiisagaba naf kala ma kalkaalo. markaan anagu teenna hanano ayaynu dad kala waxtari karnaa. marka hadalkaas ujeedaydu waxa weeye war mukasilnimo waktigeed gudub. waxaynu dhignay Soomaaliya 75% ama 78 awaad baa maanta wax qori kara. marka mustaqbal baa weliga ahaanayna roob falad iyo muxuu ahaa Gulad bin Ubayd oo laba taajira way wax wada daafacayo yaanu xiriir u ahaanayna oo beenta dhigan baan dhigayna oo marka waxa la wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikrada ama farsama miyaa la naga sixinaya kala ma yeelina bas gaajaysan turan maalmood qabay iyo diinka yaqaan hadday naagtay dabada rabanaysa maxaa waxay noloshu wax